We're going to seal up the border. Trump ayaa mar kale boorka iska jafaya. Waxa uu taageero u muujinayaa gobolka gooni ugoosadka ah ee Texas, isaga oo ku boorinaya in ay sii wadaan amar diidada ay ku sameynayaan madaxda dawladda dhexe ee Mareykanka. Sure, John Christina, it was the Texas General Land Office along with Texas. gobolka Texas isna waxba ka socda. maamulka gobolka ayaa ka hor yimid amarka madaxweyne Biden isaga oo leh Georgia qulqulka muhaajiriinta ama innaga ayaa iska joojinayna. musiibada muhaajiriinta ayaa madax iyo majaba u rogtay Mareykanka. markan waxa ay dib u horisay dab 10 sano shidnaa oo ah qadiyada gobolka Texas ee Mareykanka. wargeyska Newsweek ee Mareykanka ayaa sheegay in Texas ay joogto marxaladii ay ugu dhaweyd in ay goosato. ruushkuna dabada ayuu ka riixayaa arinkan. caalamkuna waxa uu qabaa cabsida dagaal ahli ah oo ka qarxa Mareykanka. haddaba maxaa ka socda Ameerika? Greg Abbott oo ah guddoonka gobolka Texas ee Mareykanka ayaa xujeeyay Biden. ugu yaraan 20 gobol ayaa waxa ay u muujiyeen taageero. arintan muranka dhalisay ayaa ah mid uu dhowr mar ka digay madaxweynihii hore ee dalka Donald Trump kaas oo sheegay in intii muddo ahba qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ee gudaha Mareykanka ay tahay musiibo ku soo fool leh dalka oo laga gaabiyay wax ka qabashadeeda. We're going to take over that border and we're going to make it we had the most secure border. Texas waa mid ka mid ah gobolada Mareykanka ee xadka la leh dawladda Mexico, waxaana ay tahay barta ugu weyn ee ay muhaajiriintu kaga gudbaan Mareykanka. xilligii taliskii Trump xadka gobolkan uu la wadaago Mexico ayaa aad loo adkeeyay, waxaana la dhisay derbiga dheer ee xadka ayada oo la kordhiyay ciidanka ilaalada soohdinta Mareykanka. laakiin markii uu yimid kursiga madaxweyne Joe Biden waxa dhacay isbedel weyn. farqiga ayaa ah in guddoonka Texas oo ay weheliyaan ugu yaraan 20 gobol oo ay ka taliyaan jamhuuriga ayaa weli waxa ay doonayaan in ay qaadaan tallaabooyinkii maamulka Trump ee ka dhanka ahaa qulqulka muhaajiriinta. si gaar ah Texas oo aad uga cabanaysa qulqulka muhaajiriinta ka soo tallaabaya xadkeeda. sidaas daraadeed waxa gobolka uu qaatay go'aano hal dhinac ah oo uu wax kaga qabanayo qulqulka muhaajiriinta. horey waxa ay adeegsan jirtay siliga qodxaha leh ee ku teedsan xadka. Greg Abbott ayaa go'aansaday in uu laba jibaaro siligaasi xadka ku teedsan si loo yareeyo muhaajiriinta sharci darrada ah. waxaana uu amar ku bixiyay gudoomiyuhu in siliga qarashka lagu xirayo uu noqdo xitaa hantida gaarka loo leeyahay. si gaar ah dhulka ku dhow wabiga Rio Grande waana mandaqada ugu qatarsan oo ay ka soo tallaabaan muhaajiriinta. taliska gobolka ayaa siliga ku ballaariyay daanta wabiga. taas waxa ay keentay in ay hoos u dhacaan tirada dadka ka soo tallaabi jiray xadka. waxa sidoo kale siligu uu sababay xitaa geerida haweeney iyo ilmaheeda kuwaasi oo ku dhintay wabiga. madaxweyne Joe Biden ayaa amray ciidanka ilaalada xadka iyo canshuuraha federaalka in ay siliga qaybo kamid ah ka fujiyaan xadka. waxaana halkaasi ka bilowday iska horimaadka amarada maamulka gobolka iyo kan madaxda federaalka. dacwad oogaha guud ee gobolka Texas ayaa kiis ku soo oogay maamulka Biden isaga oo ku eedeeyay in taliska federaalku ay ku kaxeen falal burburin ah oo ay ku sameeyeen hantida dawladda. waxa sare u sii kacday xiisadda ka gadaal markii ciidanka gobolka ay is-hortaag ku sameeyeen ciidanka ilaalada xadka ee federaalka kuwaas oo doonayay in ay howlgal burburin ah ku sameeyaan siliga xadka. maxkamadda sare ee dalka ayaa soo saartay amar ay ku farayso ciidanka ilaalada xadka in ay xaq u leeyihiin burburinta siliga lagu gidaamay xadka, iyada oo u cuskatay qodob ka mid ah dastuurka Mareykanka oo dhigaya in gacan ku haynta xadka uu yahay arrin u taala federaalka. qaraarka maxkamadda ayaa sare u qaaday isfaham darida labada dhinac. gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott oo saxaafadda ka soo muuqday waxa uu sheegay in maamulka federaalka Mareykanka ay jabiyeen heshiis ay horay ula galeen gobolada dalka. waxaana hadalkaasi loo fasirtay isku day uu ku hor istaagayo in ciidanka federaalka ay gaaraan xadka. waana tan dhacday kadib markii ay dhamaatay muddadii ay maxkamadda sare u qabatay gobolkan in uu ku baneeyo xadka oo ku akayd 26 January 2024. waxaana ciidanka gobolka ay ka hor istaageen ciidanka federaalka in ay xadka tagaan.
kadibna ilaa 25 gobol oo kala bar gobolada Mareykanka ah ayaa taageero u muujiyay Texas iyo in ay xaq u leedahay ilaalinta xadkeeda. Gudoomiye Abbott ayaa mar kale waxa uu sheegay in isaga iyo ciidanka gobolkaba ay diyaar u yihiin difaaca xadka koonfureed, isaga oo ku eedeeyay maamulka Biden ay ku joojinayaan ciidanka federaalka ee u socda xadka koonfureed. waxa markan ay dadka Mareykanku dareemayaan cabsi dhab ah oo ku aadan dagaal ahli ah. cabsidan ayaa korortay kadib markii uu Trump kula taliyay madaxda gobolada ee jamhuuriga taabacsan in ay sameeyaan iskaashi ku aadan la dagaalanka muhaajiriinta. waxaana loo arkay in madaxweynihii hore uu goboladan kula talinayo in ay ka hor yimaadaan go'aamada federaalka, taas oo halis ku ah amniga iyo nabadgelyada Mareykanka. arrinta soo galootiga sharci darrada ah ayaa Mareykanka ka noqotay mid haysata warbaahinta, waxaana xisbiga jamhuuriga ay kordhiyeen eedeymaha arrintan ku aadan ee ka dhanka ah Biden, iyadoo ay soo dhawaatay xilliga loo madlan yahay doorashada Mareykanka. xiisada Texas ayaa dib u soo celisay qadiyadda goosashada gobolka, waxaana soo badanaya mas'uuliyiinta iyo dadka saameynta leh ee dalbanaya in shacabka gobolka laga qaado afti ku aadan ka sii mid ahaanshaha midowga gobolada Mareykanka. majalada Newsweek ayaa sheegtay in go'itaanka Texas uu soo dhawaaday, waxaana uu sheegay Daniel Miller oo ah hoggaanka dhaqdhaqaaqa gooni isu taaga Texas in gobolka uu dib u soo ceshanayo madax banaanadiisa uu waayay sanadkii 1845. maamulka Washington oo meelo badan oo caalamka ah ku taageera gobollo wadamo kale ku yaala oo doonaya in ay goostaan ayaa markan waxa uu wajahayaa culays la mid ah midkii uu saarayay dalalka kale. haddaba daawade, ra'yigaaga maxaa la gudboon madaxweyne Biden si uu wax uga qabto xiisadan? fadlan nala wadaag aragtidaada